بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay bisha November 29 2020 dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo oo gudanaysa waajibaadka ka saaran ilaalinta madax bannaanida dalka midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed kana xun faragelinta qaawan ee arrimaha gudaha dalkeena ee ay cadeysatay Kenya taasoo dhibaato ku ah xasiloonida iyo horumarka gobolka waxay go'aansatay in wadatashi ay ugu yeerto safiirkeeda u fadhiya dalka Kenya sidoo kale dawladdu waxay go'aansatay oo la faray safiirka Kenya ee Soomaaliya in uu dalkiisa wadatashi ugu laabto dowladda federaalka Soomaaliya waxaa u muuqatay in dowladda Kenya ay si bareer ah u faragelinayso umuuraha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyadoo cadaadis ku haysa madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan si uu u fuliyo qorshaheeda ku aadan faragelinta iyo carqaladeynta heshiiskii siyaasadeed ee doorashooyinka ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku gaareen Muqdisho 17kii Sebtembar 2020 dhaqamada Kenya waa kuwa ka baxsan curfiga diblomaasiyadeed ee dalal ay ka dhaxayso dano iyo darisnimo waana dhaqan ka baxsan dhammaan axdiyada iyo heshiisyada diblomaasiyadeed ee caalamiga ah sidaa daraaddeed waxaan la tashi ugu yeeranay danjire Maxamed Axmed Nuur Tarzan oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya waxaana la farayaa danjiraha Kenya u fadhiya dalka Soomaaliya mudane Lucas Tombo in uu dalkiisa wada tashi ugu laabto dowladda federaalka Soomaaliya marnaba ma aqbali doonto in la soo farageliyo ama lagu dhaqaaqo fal kasta oo wax u dhimaya madax bannaanida iyo deganaanshaha dalkeena